الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلتي وعلى وناسن دمان جماهير تقوم كسيو قرصة جوكتان وبرنامج كيني افتيمينتا oo aynu isku dul taagayno caawa ninkii Xamse ahaa oo fariintii gaadhay kana soo jawaabay galkana seefta kala baxay dabar jabka ku dhacay kooxdii barakacayaasha ahaa ee qowleysatada ahaa ee waxa weeye laga soo diray argagixisadii SNM soo dirtay iyo qoladii lafaha sidan jirtay halka ka qowludu jirtay oo Xamse araxda ka jabiyay araxda si toos ah xaaladda Xasan iyo Xamse iyo madaxtooyadii caawa munaamka ka baxaya ayaan isdul taagaynaa iyo safarkii Xamse waxa ka codsanaya barnaamijka dug soo gaarsiin share garay hadii salaadi ku joogto soo tuko badhayna gelin hadii kale nabiga ku salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad koob shaaho dheer u soo shubo koob shaaha u soo shubo intaynu niqinay way dhaaftay baan ku yiri ninkii Xamse ahaa Xamse Cabdi Barre shalay waanigi la hadlay waanigi laba midun baad noqonaysaa ama maxbuuskii aan aqaanay baad noqonaysaa balaada eegay anigu marxuum ku oran maaye maxbuuskii aan aqaanay baad noqonaysaa balaada eegay ama laandheere dhalay oo isagu tayd isu qaata oo isdhaqa eegay oo khaladkii iyo gafkii iyo wixii uu sameeyay nin maanta ka farxasha eegay baad noqonaysaa Xamse tii dambuu qaatay galku seefta kala baxay shir jaraa'id buu maanta qabtay shirka jaraa'id wuxuu ugu quusgooyay qoladii barakacayaasha loo rajiray barakacayaasha SNM qoladii muqdisho waxa weeye xildhibaanada waxa weeye cabaad weynta argagixisada SNM ee halka ka qowluudi jirtay ee ilaa xalay ilaa iyo habeen hore ilaa shalay Xasan saa lugaha u haysatay waa ku ridaynaa xildhibaanadii baanu kicinaynaa Soomaalidu waxa ku mahmahdaa ninkii halaba hablaha Allah lee hulunbana ma soo taaga maalin kasta iid maaha Xasan wax badan buu tunkaydu ku siday iyadoo umada Soomaaliyeed la leynayo oo waxa weeye madaafiicda dhacaysaan oo Somaliland jamhuuriyadda barida weyn halka aad ka cabaadayso leefka seeta bulcagi dishini oo Ismaaciil Cumar Galeedi soo raacay oo wax walba leedii sameeyay eegay tamartiini iyo tayadiini wax horta Xasan munaafiq arkay walaag Xasan munaafiq oo anaga noo hayo iyo abaal uu noo galay iyo midaan ka sugayno eegay horta midina ma jirto umada Soomaaliyeed wanaag ma gelin ila darad Xasan bisaa haysteen Xamse haduu la asxaanato haduu khaatibo tago ila ay hadda intaan ogahay Xamse iyo Xasan wax wada hadal oo arinka ka dhaxmaray ma jirto Xamse laakiin nuxdii buu maqlay waa lagu ridayaa hadda la asxaano tagto hadda khaatibo istee tagto mooshi baanu ka keenayna war aniga yaa haysataa buu aniga yaa ii haysataan maalin kasta anu magalood baan noqonaya boqof lamood baan aniga ii haysataan waxa jirkeyga ku jira inuu dhiig iyo lafo iyo waxa weeye inuu yahay meedan ogeyn odaga afku furtay bahal shir jaraa'ida buu ooda ka soo qaaday ooda bal horta inta aynan u gudbin nimankii cabaad weyn tahay iyo waxa maanta fiil qabyaala ka socda eegay waxaan wax yar isdul taageynaa hadalkii Xamse Cabdi Barre xafiiska Prime Ministerka Soomaaliya iyo maamulka SSC Khaatumo eegay waa madaxweyne fardhiye hogaamiyaha warkaas horta ma idin galay cabaad weyni argagixiso iyo warkaas horta ma idin galay horaan idinku sheegay ninkii xoog leh baa xaajo u toostaa ninkii guuleysta eegay bay dadku ku daba faylayaan waxaana inay imanayso in lagu khasban yahay inay toobin sida aan dadka sanka uga gelinayo fiil qabyaalo soo hore idinkuma sheegin miyaad ka qarin sir ma hayn wax laga meermeero laga leexdo maya waa dispute maya waa Somaliland maya waa Soomaaliya dhirbaaxo dheg iyo dhaban eegay wiilal baa u godgalay rag baa u godgalay balaadegay qaar baa fadalkooda geelu ka cabay eegay rag baa furtay naf iyo maalba iyagoo nool 500 baa xabsiyada ugu jira waxaan ciyaar kuma iman Xamse iyo Xasan iyo madaxweyne kasto yimaada iyo ra'iisul wasaare kasto yimaada iyo baarlamaan kasto yimaada toobin baan ku yiri toobin halka anigoo fadhiya eegay 8 bilood ka hor bay ahayd markaan lahaa ama cirka hal la galo ama dhulka hal la galo eegay waa lagu qasbayay Khaatumo State of Soomaaliya
cid allaale iyo cid aan ka baryayo ka hadalkeeda iyo maamulkeeda iyo in lay hoos imanayaan ma jirto sababtoo ah nin xoog leh oo daalin xun oo tamar daran intuu soo dantay aakhiro u diray baanay oo naasaha ka garaacay baanay oo furtay baanay eegay cid aan u baahnayn naftaada markaad adigu sharafto ood weynayso ood karaamadeeda iyo dadnimadeeda iyo wanaaggeeda iyo xooggeeda iyo tamarteeda iyo tayadeeda iyo waxay qabanayso aad waxa weeye muujiso ayaa dadka ku ixtiraamayaan balse xamse maanta cabaad weyntu waa guusgooy xamse xaqiiqada iyo runta iyo waxa jira buu ogyay waa tagayaa maamulka khaatume state of Soomaaliya hogaamiyaha madaxweyne firdhiye iyo maamulka khaatume iyo laascaanood baan u socdaa buu yiri cidka ninkii iga hayo uu igu soo dubi maamulka khaatume state of Soomaaliya iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya oo ra'iisul wasaarihi hogaaminaya ayaa wada kulmaya caasimada khaatume state of Soomaaliya oo laascaanood baa laga degaya warka goormaan idin sheegay warka goormaan idin sheegay goormaan idin shimbirtii cirka u duushay irsaaqadeedu dhulkay taala goormaan idin aniga waa laygu khasban yahay goormaan idin maamulkayga maamul goboleedka khaatume state inaanu dhudhumin iyo sasabid iyo leef iyo midna aanu u baahnayn abaad weynaysa dareemaysan maanta barakacayaashii waxaan la hadlayaa waxa weeye xasan jiidanayo maxaad maanta dareemaysan waa ra'iisul wasaarihii xamse cabdi barrawi hadalkan iskama iman maamulka khaatume state of Soomaaliya iyo dawladda dhexe oo ra'iisul wasaaruhu hogaaminayo oo laascaanood ka degayo halkaas maamulka iyo wada hadalka iyo dawladnimada iyo qabshaxda iyo khalkhalka la isku arkayo eegay goormaan idin sheegay miyay dhaweyd markaan idin sheegay oo iri waa soo socotaa waxba ha dhudhuminina eegay waxan waa lagu khasban yahay meeshan waa meeshii midnimada iyo gobonnimada ummadda Soomaaliyeed ka bilaabatay eegay iyadii ayaa maanta ummadda Soomaaliyeed ku midoobaysa markaan idin lahaa Soomaal hore ma hay haddaba ninkii xamse ahaa warkiisa waad maqasheen war hoose baa jira xildhibaanadii qayb ka mid ah ayaa xamse u tagay waxa li xamse ra'iisul wasaare dadka isu soo jiidayna Soomaalinimada waxa weeye xildhibaanadii baa kacaya wuxuu taga maalmahaas wiil maalmihii adkaa mar hore tageen biir riwaayadii iyo beentii iyo propagandadii wax walba way idin sameeyeen biir idinkoo dadkaygii laynaya aan ra'iisul wasaare u ahaa oo reer ahaan ku matalayay ilaan anigu garac dhulka soo fuura ma ihi buu yiri anigu dad baan ileen ku abtirsadaayo meeshan kursigan aan ku matalaay anigu nin daaro Ismaaciil oo nin kablax daarooda eegi ayaad waxa weeye dadkay igu horleynaysan oo waliba idin taageersana maxaa la idinka faa'iido maxaad soo kordhiseen wax allaali wax maanta Soomaali u qabateen miyaa jirta oo dulmi iyo daalinimo ahayn oo la dhex fadhidaan waxa weeye baarlamaankii la dhex fadhidaan maxaad ummadda u qabateen buu waridigo shalay la saacado duqeynaya oo dadkii laynaya buu yiri oo calanka buluuga ku diray baan anigoo ra'iisul wasaare ah dadkayga oo la laynaya iyaga dusha uga sii baxay oo iyaga sii maagay wax walba ku sameeyay maxaad soo kordhiseen wuxuu yiri huutiyo haatow laba haaribow maxaad soo tarteen maxaad ummadda Soomaaliyeed u qabateen maxaad meesha u fadhidaa barakacayaal baa tin buu yirniyo barakacayaal xildhibaan Firimbi hadalkii uu yiri buu ku yiri ra'iisul wasaaruhu wax allaaliyo waxaad ummadda Soomaaliyeed u goysaan iyo waxaad u qabataan midna ma jirto oo cad weeye saasa loo wada hadlayaa baan kuri indhaha la iska saaraya baan kuri qaawanaanta lagu wada hadlay ra'iisul wasaare waxa weeye laascaanood khaatuma xaaladda si xuman Soomaaliya si kala goyn hadalka ra'iisul wasaaraha waxa ku jirta xamse cabdi barre maamulka khaatuma state tagitaankiisa iyo dawladda dhexe oo wada hadlaya iyo waxa weeye dawladnimada wanaaga cidna wax loogu dhimi maayo buu yiri maamul kale oo Soomaaliyeedna lagu dhibaateyn maayo sida ogaada waa afgobaadsi laakiin xagga hoose iyo markii waxa weeye kaamirada dhabarkeeda si qaawan baa loo wada hadlo xamsana xaq buu leeyahay xamse waa ninkii shalayna lahaa bacayda joojiya baroorta joojiya qaylada joojiya ayuu dadkayga laalaynayo dadkiisa la xasuuqayo laba jeer uu mas'uul ka yahay marna uu magac ku matalo eegay marna uu ra'iisul wasaare u yahay laba jeer waxa weeye dadkiisa laalaynayo ayuu waxa weeye taa qaraar qaatay taa markaan sameeyay buu wanaag baa rabay laakiin wax wanaagoodi ka soo naasacay ma jiraan buu laascaanoodna waa tagayaa khaatumana waa tagayaa waana maamul eegay waana dikreeto mar
afkiisa ma ka haysaan maamulka Khaatumo state waa decreto buu yiri afkana waa ka oranaya lugteedana waa ku tagay nimankii hawiye hadaba nimankii hawiye mood bay galeen intoodii badnayd mood bay galeen way yaabay wax dhawrkii xamse aha galku seefta kala baxay nimankii daarood baa dhabarka ka soo maray wax ku soo riyaa waa yaabay yihiin mood bay galeen laakiin hawiye laftirkiisu wuxuu arkay nimankan ii doori halkan jooga maar nimankan la faashita ee argagixisada inaanay wax allaale iyo wax naf ah iyo wax nolol ay u hayaan aanay jirin eegay wixii barankiga ahaa urur Soomaaliya shurshuur Soomaaliya markay naftu qabato ee waxa weeye ay ku leeyin jireen nimanka hawiye waa fahmay sababta ma anta caasimadii Muqdisho waa aragtaan xogaade musuq maasuq iska jiro xasan munaafiqa joogo oo dadkii gaajaha u dhintay laakiin qaraxii bay ka rasteen qaraxii baa yoogi bay ka rasteen sababtoo niman jamaahiira oo daraawiish ba hor fadhiya nimankii oo xabsiyo u samaysanaya waliba mid baa ku daraya cabaad weyn barakacayaasha iga gaarsiya waxa weeye xildhibaanadii barakacayaasha xildhibaanada iska dhigi jiray ee afka abuurka sii dajay imsa leedin dul qaadanay intii umada Soomaaliyeed idin dul qaadan kartay been aad u sheegi karteen dadka aad leyn karteen baabi'in karteen waad baabi'iseen waxaad haydeen dadka inta soo war waxa leedin ku dul qaatay cid loogu dul qaatay ma jirto dadka waxaad u haystaa inaad ka aqli badantiin kama aqli badan dadka ugu aqli xuntiin dadka inta soo istaagaan baarlamaanka iyagoo xasaanad umad Soomaaliyeed sita oranayaan Soomaaliland baa dhigada Soomaaliland baa meeshu fadhina anaga isaaq baa dhigada hadan waxa weeye isaaq wuxuu doonayaan la sameyn hadan musabbix waxa weeye wuxuu doonayaan la sameyn anaga waa tagayna oo hadaa tagtay maxaa la tagtay waxa la yiri shini baa tiri waa guuraya marka dadku ku qariyahan naga guurin warna la joog malabaanu kala day nafac weelada duqsi baa yiri shini baa la sameeyay anaga waa guuriya warna naga guur baa adiga khasaarana ku qabnay duqsiyo weelka naga dhacda caanaha ku daadata umme gabiga ugu jeerim soconaya tay guur bali maanta waxay maraysaa nimankii cabaad weyntii argixisada sanam in baarlamaanka dhexdiisa laga yiraahdo eegay guura hadda dareera heer Khaatumo waxaan leeyahay xamse cabdi barre waa soo socdaa ra'iisul wasaarihi laas camalad buu ka soo degaya soo dhaweeya u diyaar garooba waa ra'iisul wasaare Soomaaliyeed waa nin tola eegay wixii dhacayba waa dhaceen khalad baa odayaa ka dhacay maanta waa ismaydaya tayr buusita burshinta leeg buusita nimankii cabaad weynta waa u soo quusgooyay eegay nimankii hawiyana mood bay galeen waxay xaaladda dalka marayso mood baa laga galaa eegay reer koonfureed waa ilbax kiisku markuu adag yahay mood bay galeen nimankiina oo soo quusgooyay soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha xamse magaalada Laas Caanood lagu soo dhaweeyo hal tuso maamulka iyo nidaamka iyo barwaaqada iyo gobonnimada iyo sharafta ilaa xudun iyo taleex iyo ceerigaaba la geeyo waxa weeye fardihii iyo dooxadii xudun iyo ceelashii iyo barwaaqadii iyo caalihi geelaha iyo nimcada meesha taal soo tusa baladeegay cimri tagay ceeb laguma sogotiye reer Khaatumo waxaan leeyahay waynu guuleysanay guushiina waynu gaadnay maamulkeenna maanta halka u marayo cayaar kuma iman isku dubni buu ku yimi gobonnimo ku yimi dhiigbax buu ku yimi dadaal buu ku yimi sida aan isugu duubanahay waligeena isugu dubnaano barnaamijka si share garaya oo gaarsiya cabaad weyntii iyo argagixisadii eegay gabal baasin u dumay sida tigreegii daadku u qaaday baa wax allaalay wixii hadgumaysi ahaa iyo lafasoo toona daadku u qaaday khayr iyo baraka idin jannah. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.